magaalada Muqdisho looga dhawaaqay maamul lagu magacaabo Jubba Ganani State kaasi oo la sheegay in loo sameeyay deegaana kamida gobolada Jubbooyinka madaxweynaha maamulkaasi Jubba Ganani Abdullaahi Xasan Cali oo la hadlay telefishinka Somali Channel ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedka maamulkaasi loo sameeyay Jubba Ganani State waxa loo aasaasay maadaama muxuu ahaa Jubba Ganani State maamulkaas waxa horta maamulka samaystay deegaanka Jubba Ganani State ku abtirsada sababaha loo sameeyay dhibaatooyin ka jira deegaankaas oo muxuu ahaa yaani maamulo oo yaani si dulmi ah loo sameeyay oo haddana dulmigiisi ku aqirsaday muddo badan muxuu ahaa yaani ay ka dhursugayeen oo wax yaani ayagoo dham xuquuqdii asaasiga ay ku lahaayeen la duudsiyay sidii la inkiray ayuu shacbiyadii dhibaatadooda iyo dhibkaas ku dhacay ayay dareemeen in ay xuquuqdooda asaasiga iyo deegaanadooda dib ay u soo ceshadaan wadanahoodii ayooda uga tashadaan ayaa loo aasaasay dhinaca kale Abdullaahi Xasan Cali madaxweynaha maamulka Jubba Ganani State ayaa ugu baaqay qurba joogta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada gobolada Jubbooyinka inay taageeraan maamulkaasi kan dibadda joogana waxaan leeyahay inay dalkoodii deegaanadoodii u soo gacmahaatiyaan oo maamulkaas la shaqeeyaan oo sida jaaliyadaha noo soo hambaliyay ama muxuu halkan joogo oo yaani sida Ingiriiska Mareykanka jooga sida Jaraal muxuu Xuseen oo kale inay noo soo garab istaagaan oo ay muxuu ahaa yaani hiiliho nala soo garab istaagaan ayaan horta ka rajaynaynaa kana codsanaynaa shacbiyada deegaanada degan Jubba Ganani State waxaan leeyahay gacmaha isqabsada muxuu ahaa yaani idinkoo madooba ayaan idin leeyahay nabadna ku muxuu ahaa yaani dadka deriskiina walaalaha ah inaad nabad kula noolaataan gacmaha isqabsataan ayaan leenahay Maxamed Muuse Maxamed Somali Channel